Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkayga Modern Somali Food saad iga barateenba waxaan idiin soo geliyaa fiidiyoyo cunto karin ah ama waxa weeyaan vlogs ama meelo dalxiis ah oon soo booqday ayaan idinla soo share garayaa ama waxyaabo kale oo aan jecelahay inaad ka faa'iidaysataan sida rutiinada day in life waxyaabahaas ayaan idiin soo geliyaa marka waxaan rajeynayaa haddii aad channelkayga ku cusub tahay inaad subscribe ii saarto haddii aad ka tirsan tahay dadkii hore ku jirayna waxaan kaa codsanayaa inaad fiidiyowga sii share garayso comment ka soo bixisid like ii saartid asxaabta iyo ehelkaagana aad la sii share garaysid asxaabi maanta fiidiyowgan waxaan rabaa inaan idinku daawadsiiyo quruxda magaalada Berbera maasha Allah tabaaraka raxmaan sida loo dhisay isbedelka ku yimiday sanadadii ugu dambeeyay maasha Allah tabaaraka raxmaan wadooyinkeeda marka fiidiyowgan wuxuu noqon doonaa fiidiyow muxuu ahaayay mainly road trip ah aan dhex marayno magaalada Berbera aan tusayno isbedelada quruxda sida loo dhisay qaababka ay tahay marka waxaan rajeynayaa inaad daawataan kana bogataan insha Allah meelihii dambe aan soo marnay markii dambeena waan idin tusi doonaa hadii Ilaahay dhaahdo daawada ayaan idin leeyahay stay tuned hanfi iyo kulayliyo baraf male dhulkeenu ye inaga halayne Soomaaliyey hoy hooda alaweeyaan deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo haybadu waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo wana lama huraane agarli wax ugu qabo wana lama huraane agarli wax ugu qabo callankaagu waa hibo sharaf kugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiiranayse hanfi iyo kulayliyo baraf male dhulkeenu ye inaga halayne Soomaaliyey hoy hooda alaweeyaan deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo wana lama huraane hagarli wax ugu qabo wana lama huraane hagarli wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga oranay helayo hantiyay macaan waa midaan hoy laga oranay helayo waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiiranayse hanfi iyo kulayliyo baraf male dhulkeenu ye inaga halayne Soomaaliyey hoy hooda alaweeyaan deegaankiisa hoodanka loo wada hamuume haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hoyo wana lama huraane hagarli wax ugu qabo wana lama huraane hagarli wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga oranay helayo hantiyay macaan waa midaan hoy laga oranay helayo
asxaabi imika waxaanu soo gaadhnay magaalada waqtigii qadada maadaamay tahay markaa waxaanu isna idhahnay iska sii qadeeya intaydan badda tegin aftar qadadan aanu iska tukano markaa dee obviously annagoo barbara nimidna kama bixi karna annagoon kalluunkii shiilnaa ama dubnaa annagoo oon soo cunin marka maasha allah annagii faamilkii xaggan aanu fadhinaa waxaanu dalbanay qadooyinka aad arkaysaan markaan iminka insha allah aanu iska qadayno aanu iska yara nafisno maadaama oon safar ka nimidno dee ilaa hargeysa kasoo safrayna ilaa saaka oon iska yara tukanay salaadaydii duhur kadibna waxaan nidhi xagga iyo badda ayaanu tegaynaa waxaa la yidhaahday iminka cilmi boodhari examplekeedii labaad xaggana looga sameeyey waa meel yaroo iska muxuu ahayey copyo ti originalkii ahayn oo dadka magaalada loogu talagala ama dadka safarka annagoo kale meeshii kala tegi karaynin inay daawadaan marka iminka waxa aanu soo galnay xaggii xeebta ayaan u soconaa maasha allah dhismo qurux badan oo kale ay weeyaan intana magaalada yacni ashqaraar ayaad u dhacaysaa wadadaad marsaaba wadada kale way ka duwan tahay midda kale waxaan ka helay siday magaaladu nadiif u tahay quiet u tahay inkastoo waqti duhura ay ahayd oo dadkii dee qadaynayaan xaafadahoogii yara tegeen cadceedda kululka yara nasanayaan jawguna aad iyo aad ayuu maalintaa u kululaa laakiin waqtigan annagaa door bidnay inaan badda tagno maadaama waqtigan ay quiet yara taho privacygeeduna uu yara fiican yahay maasha allah markaas aad arkaysaan iminka baddii ayaanu isku sii daynaynaa aan usii soconnaa maasha allah kolley fiidiyowyada aan badda kasoo duubay ma soo gelin doono laakiin waxaan rabaa inaan idin tusa un muuqaalka badda xaggeeda sare umaan idinka tusi doonaa haddii ilaahay idhaahdo waxaana rajeynayaa maanta inaad ila dalxiisteen idinkoo aqaladiinii jooga aad ila daawateen magaaladii quruxda badneed ee berbera somaliland maasha allah marka waxaan idin leeyahay inta hadhay fiidooga ku dhamaysta idinka oo faraxsan oo daawanaya fiidooga xigana waxaan rajeynaya inaan idiin soo geliyo isagana dalxiis kale oo kamid un dalxiisyadii aan soo maray intii aan magaalada hargeysa joogay imika waanu kasoo baxnay baddii maasha allah hoteelkan ayaan nimaadnay xeeb soo kormaleyna in la odhan jiray marka xaggan ayaan rabnaa inaan iskaga soo meermeerano iskaga soo yara nafisno salaadii casar kusoo tukano markaanu kasoo baxnayna waxaanu soo marnay aadan 19 waxaanu kasoo qaadanay ice creamyo kala duwan oo yacni aada u macaan maadaama uu jawgu aada u kulul yahay annaguna de aanaanu ahayn dad xeebta ku nool mar walba waa inaanu qaadano biyo ice cream iyo qabow waxyaabo kala duwan oo qabow dee kuleelka naga saaraya waa inaanu qaadano markaa fiidiyowgeenu maanta intaasii ku eegyahay kheer ayaan idinkaga tegaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hoggaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun howlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaarba kun bay si hagaajisaaye haddaad ku hungowdo kaalin hareer kale soo tijaabi